duqa magaalada Muqdisho ayaa ku wareejiyay guri muwaadin laga haystay muddo 30 sano ah gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho Cumar Maxamed Filish ayaa maanta muwaadin Soomaaliyeed ku wareejiyay guri laga haystay muddo 30 sano ah gurigan oo ku yaal waaxda Jabuuti ee degmada Kaaraan ayaa lagu wareejiyay Maxamed Shariif Cumar gudoomiyaha gobolka Banaadir Cumar Maxamed ayaa ku wareejiyay Maxamed Shariif Cumar oo ah muwaadin Soomaaliyeed oo muddo 30 sano si sharci darro ah looga haystay gurigiisa ku yaal waaxda Jabuuti ee degmada Kaaraan ayaa lagu yiri war ka soo baxay maamulka gobolka Banaadir maamulka gobolka Banaadir ayaa sheegay gurigan lagu deganaa qaab sharci darro ah hase yeeshee dadkii deganaa ay ogolaadeen inay ka guuraan gurigan la wareejiyay ayaa sida sharci darrada ah lagu deganaa waxa ka muuqday dayax xooggan inkastoo dadkii muddadaas dheer ee deganaayeen ay ogolaadeen in si nabadgelyo leh ku wareejiyaan ayagoo ka jawaabaya baaq duqa magaalada Muqdisho ah inaan la aqbali doonin caasimada gudaheed qof hantidiisa sharci darro looga haysto ayaa lagu yiri war ka soo baxay maamulka gobolka Banaadir dhamaadkii bishii hore ayay ahayd marka sidaan oo kale gudoomiyaha gobolka Banaadir Cumar Filish uu ku wareejiyay guri ku yaal degmada Xamar Jajab dadkii lahaa oo muddo 28 sano ah xoogna ku haystay awaamirtii iyo inuu ka baxana ka dhaga adeegay waxaase aad ugu faraxsanahay taliyaha qaybta guud ee booliiska Soomaaliyeed ee gobolka Banaadir inuu nala qaatay isla markaana askarigaas isaga maanta uu ku xiran yahay xarunta dambi baarista isla markaana aan u gudbin doono maxkamadda waxaan rabnaa anaga muwaadin kasta Soomaaliyeed wuxuu xaq u leeyahay inuu helo cid allaale cidii guri aysan lahayn deganeen horaan ugu celcelinay maalinay noqoto waa lagu imaanaa maxkamad iyo sharcigana waa lagu la tiigsanaa cadaaladdu waa wax ugu muhiimsan waxa anaga maamul gobol ahaan naga go'an waxay tahay in shacabka Soomaaliyeed ee ku nool gobolka Banaadir inuu helo cadaalad sinaan iyo wax alaal wixii xuquuq u leeyahay